بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فرحت بيدوتهاي كل وينهنا مانتي inaan isugu nimaadno barnaamijkeennana uu taxano noo ahaado waxaan aad iyo aad mahad ugu celinaynaa wakiilka ahlu quraanka Yurub u jooga Sheekh Jaamac arrimaha uu ka hadlay oo saddexda arrimood ah oo mid ay ku saabsan tahay aasaaska tahaarada fathiyabaka fatahhir warujza fahjur ahamiyadda ay leedahay qofka muslimka qalban wa qaliban inuu taahir ka yahay jirka iyo qalbiga labadaba inay aasaas tahay tahaaradu oo iimaanka barkii tahay tilmaantaas baxfiga uu ka diyaariyay iyo maqal iyo muuqaalka uu naga tusay arintaasi aad iyo aad bay faa'iido noogu tahay dhalinyaradu waxaan rabaa inay dhammaan ka wada faa'iideystaan ay dhageystaan kulankan maantay dardaaranka uu noo soo diray Sheekh Jaamac khayr Allah siiye qaybta tahaarada ku saabsan in aad looga faa'iideysto waa arrin nolosheena iyo diinteena iyo nadaafadeena iyo iimaankeena wax ka bedeli doonta baxthu tahaara ama saajinka laga sameeyay tahaarada oo Sheekh Jaamac sameeyay in laga faa'iideystay u baahanta arrinta labaad waxa weeye ahamiyadda ay leedahay qofka inuu ilaahayna ka ilaah dhigto quraankana ka diin yeesho arintaas ahamiyadda ay leedahay oo qaybta labaad uu sheekhu uga hadlayna waxaan rabaa dhalinyarada meesha isugu timid inaan ku booriyo inay ka faa'iideystaan sidii ballantu ahayd markii facaaliyaadka kale ay noo dhammaadaan waxaa soo jiri doona fiidiyowyadii Sheekh Jaamac oo ay hordhac u tahay astaamihii qaranka ayaa soo gali doona haddii alla idmo waad daawan doontaan qof walbana waxaa laga rabaa inuu su'aalo diyaarsado waataanu horey uga balannay kulankeena labaad ee aan qaban doono in aan uga jawaabi doono su'aalaha ka soo baxa baxtigaas naloo soo diray marka qof walba waxaa laga rabaa inuu ku dhaqmo aayaddii qur-aanka ahayd oo oranaysay man alqa samca wa huwa shahiid qofku dhagaha inuu raadiciyo qalbigiisina uu joogo haddii dhagaha wax maqlayaan qalbigaaguna uu maqan yahay baxtiga juhdiga lagu bixiyay oo maqal iyo muuqaalka ah waxba ka faa'iidi maysid arrinka saddexaad oo ugu dambaysa waxay tahay dhawaaqa maanta arda quraanta Soomaali ama dadka afka Soomaaliga ku hadla arda quraantoodu dhawaaqa ay maanta dhawaaqayaan ama ahlu quraankoodu ay dhawaaqayaan labada magac midna waa carabi midna waa Soomaali ahlu quraanna waa Soomaali waa carabi arda quraanna waa Soomaali inagu maadaama maanta Soomaali nahay oo kitaabkii fahanay maxaa nahay dadkeenu waa reemiyi weeyaan reemiyigana nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyaga oo lahayn kaniifiya aan galaan may lahayn ul buusitay waran ku qodan jiray dhulka markuu xaajo gudanayo haddii la oran lahaa xadiiska ay wataan ragani waxa ku jirto hal kelmada oo run hadii la oran lahaa waxa ka qaadan lahayn oo kaliya marka uu samada ka soo noqday uu bilaal maxaad sameeysaa oo jannada iga horeysay rasuulullah wax kale ma sameeyay buu yiri waxaan ilaaliyaa nijaasta dahaara kolka waa maxay nijaastaan ilaaliyaa dhukaan u qada markay nijaasta aan ka soo xaajo dhamaysanayana laba rakacadood baan tukadaa wada ilaahay miyuuna ku oranay كنيف حداد كتمادد ويسيسو حداد ويسيسو ينسنة وإن هرك على تكتها
haddaad weysaysatana waa inaad gabadh haddaad taabato haddaad kiniif ka soo baxdo haddaad safar tahay tayamum ciidda qaado kiniif kastood ka timaadidna hal rakacaad tukanaysa waa weyso kiniif kastaba weysaa kugu waajibtay maaha ta kolkaa laleeyahay bilaal ba halkaa ka soo yidhi waan weysaystay weyse maaha dahaaradan qaatay weyaan dahaaradan ilaaliyey sida aawadeed boqolkiina xabba oo qaadato ood salooshid oo dherin ku salooshid waa maraqkana dheri maraqaad soo qaadaysaa waxaad eegaysaa indhaha uu leeyahay indhuu leeyahay maraqu indhahan yaryar kolkay kaadida aad kaadinaysa aad la fadhiisatid dadkeena reemiyiga ah inaan wax u sheegno ah inay la fadhiistaan ah waa inaan iyaga u digna maanta waa inaan u digno maxaan uga digaynaa waa inaan uga digno kolkay kaadinayaan inay ragga iska eegaan maaha haweenkeennu waa inay ilaahay iska eegaan oy god u qotaan sida ay ragga usha u qaadanayaan oo kale waa inay iyaguna ulu qaataan oy dhulka ku dilaacsadaan oy dhulka gasho kolkaa kaadidu sidaabaa u daahiraad badan qul lilmu'miniina yaqdudna absaarahum wayaxfidna furuujahum dalika askaa lakum taabaa ini daahiraad badan xabadda keliya jajabto imse bay noqonaysaa xabadda keliya qaraxdo bukullidii aansalole ka mid ah kiniifyada haddaad doonaysa waa kuwan kan waa ka lagu fadhiisto kan waa ka yaryar kaana waa ka ay xaafidu leeyihiin inta badan boqolkiiba 5 buu qabtaa kani boqolkiiba 45 kani boqolkiiba 50 ka sarajoog ee carafo ku yaalo 75 buu qabtaa boqolkiiba ka reer Yurub ay haystaan sarajoogaana waa boqolkiiba 75 5 iyo 25 kale dharkay ka martaa waayo waa dad sarajoog ku adsho kuma doolayso intii dooshay surwaalka bay ka maraysaa waad mahadsan oon rumayna hodhow toole iminka waa sax waa inaan wala qaadano oon rumayno ilaah keliya hati waayo iminka waxbaa noo cad iminka waxbaa noo cado waxaa noo cad inay aayadani tahay ta keliya ee lagu badbaadayo oo aan noqono 3 nin waxaa ilaahay dambi dhaafay nebi maxamed koox muhaajiriina iyo koox yaro ansaara iyo qayb yaro dhexda deganayd iyo 3 nin oo tiir isku xidhay oo marka hore halaadina la yiri nebi maxamed hadduu wax u shafeecad qaadayo 3 nin bulaadi lahayd dambe ragii hore waa lagu qabsaday wixii runa waa run wax kale lama doono 3 nin dib u dhiga kadib ba ilaahay ba u dambi dhaafay 3 nin كونوا مع صادقين أبوني لعنانا أنت كذا بايسو تتكلم دم بدافع يعني ماشي كجرا وهالكي كواحد دم با يا عمن دونتو كواحد دم با عمن دونتو لله ده ولي ما تفيرسنين بما تفهمين با إنان كوحي وإيمان دونتا إلهي أولها إنان نايئيو هي إنان أهين با وحيب أنت يصاب بحين با ياي دونا يعني إناي بختيان نورك إلهي ما بختين كلام لكن وحا لغا مرقودا كل عيدا إياي دادك أنتو يصاب الريان بالوراني ولو كره الكافرون وآيقرانا لوع العلي كافر كي وكان شيئا يبا كافر كان دول لي انه ميل كان waxaan la doondooneen dadka dambiga galo qalka dambiga galo aan qaadno in hadana dad kala dul dhigno waa dambi la dul dhigay kolka ilaahay aan toobad keeno waqti baan haysanaa
waqtiga maanta wixii laga bilaabo mushrik baan wada ahayn ciddii ilaahay aayadihiisa qaadanayso aayaduhu way noo furan yihiin ilaahayna dembi kasta oo oon gallay mushrikiin kasta oon gallayba isdaahiri oo igu soo xidhay buu ku leeyahay bari ilaahayna shaydaanka astaxwadad shaydaan baa naga qaalib noqday waa inaan shaydaanka iska reebno waa inaan kiniifka kolkaan gallo aan sheekayno waa inaan kiniifka kolkaan gallo aan sheekayno waa inaan ku dhex hadallo waa inaan labada gacmoodna cuntada ku cunno xataa cunto waa inaan la galla kiniifka dhexdiisa si aan uga badbaadno hadalkiisa shaydaan baa fadhiya waxba ha cunin hana aamusin hana hadlin lagu leeyahay waa ka soo horjeesanaynaa waa inaan kiniifka hadday cunto haysana waan ku cuni karaynaa joonar waan ku akrin karaynaa aayaddii qur-aanka waan ku dhegaysan karaynaa inagoo ku jirno وأيو تن وواحد لقى حدا رجع عربات باص سميستي وقادني أف عربات كنا دين معها يهود بولاي بقبصدي ويلما يجوا دين هراستي إيه كافرين تن وحوي دين ين أهل الكتاب وعن هالعلنا يا الدنيا الله ما أنت إلهي وعنسيي حقي يا باطلكي أو كلعب حق ملء واحد بتعقفنا وما هيو أهل الكتاب مشركين مؤمنين عندنا دبات ملء يسوي عدالة مشرك هدويا هنا حنو ولا هذا مسكين كيسنا هقول تكذب أهل الكتاب هديهن حنو ولا هذا انتظروا حقنا إننا هنولانا وإحنا هنفهمنا دينتنا عوضنا كل كلمة عن سوف فهمنا أردت كم حكلا لنا إن يتهني تيسح ذا لا يتهاي أو إن قادرنا يتهاي واحد نويدين كرتين وحويان أو كليا سيدان وتكنا والركعات كليا تكون كرتا وقت كستوت كليا بجنا وتكون كرتا حتى جمع هيستيد ده iyaguna xabad bay kula tukanayaan waa laba ragcadood baa isla tukan karteen mid iyo xabad sujuud leh annaga oo nool waa inaan war soo saarno waa inaan kitaabkeeni baano wax kala soo wada baxno saalimka wala soo baxno kale ma aha inaan orano dad dhintay baa kutub noo qoray dadka dhintay waxa ay leeyihiin qad khalat wixii ilaahay siiyay bay leeyihiin innaga nool wixii ilaahay na siiyay baan leenahay marka waa inaan inagu dadaalkeena tan aan ku fahanay waa inaad inaguna sii gashin maanta way needha beertahay inaad boqol xabo bukulla salooshid hadday kuu joogsato dharigaaga hadday xabadi kaa dhici weyday kuu saloolanto dee kolkaa eeg waxaad garanaysaa inayna ku soo gaarin dooldoolka nijaalo tegi jiray iyo saca iyo heello iyo foorin iyaa lala tegi jiray khalaas kanina مساجد إدينا مشري لا إيمانا معها إما كواحد أمهد علينا إلهي دت كان دلالة على القرآن كأبان أمهد علينا كوا كلنا واحد لنا هاي صاق قال الدين ده ما أنت وين الدين تسوق شيء وأي بعد هذا الإسكو وإنه عن بين إسكو دار إنه أي أقولها إنه يالين وحي كلنا ودي إلهي نجمع أقولان يا تاس ummadda wixii wax qabsan lahaa ilaahay adu dariiqa jannada u furi lahaana inaga ka hor joogsanay waa nijaas waa mushrik haddana maxaa nidhi ilaahay baa wax ka heli doontaa iyo xaggan soo tuko ma jirto bari buu ka yahay ilaahay nebigiisuna bari buu ka yahay وكاد عيسى سورة المؤمنون آيات عفر السلاشنات وكاد عيسى ونقد عيسى النبي إلهي يوم قرض كل كذا هلاك وكسر دجيل يصير على بيسد إلهي يوم عمي هاي جوجين بقولي ماشي معك أصلا عنا قربها معك وصل لنا
rag baa samaystay solligan rag awal malag wadan jiray oo malagan baa noo kaa xidhaya ilaahigii odhan jiray iyaa malag intay dhigaan nebi maxamed baa lagu soo qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma nacayno waan jecelnahay waa aayadihiisii uu noo keenay laakiin waxaan u baahannahay dadkeenna baadiyaha inaan runta u sheegno ama dadkeennan madmadow ee maanta qur-aanka aan fahanay waa inaan wax u sheegnaa inay yidhahdiin caligaaga waa soo dilaynaa mid kaleuba samaysta inay yidhaahdiin oy hadal bilaabaan maaha waa inuu ilaahay ka cabsoodaan dadku oy wixii anfacaya ay kala baxaan meesha dood maaha hadal baa laga doodi gacan dagaal uu dhammaaday adduunka dadka diinaha le wax soo weydiiya horay u haystay inagu tayna waan laabnay waan xidhnay iminku ilaahay nafisiyo la soo baxnay hadday diin saxa tahay muxuu ilaahay aayadda kolkuu soo dejinay suuradaha beri baaban ka ahay buhi salaadiinna iyo waxaanaad wadatiinba dadkiina kitaab kalaan u qorno ka sokayso فبأي حديث بعده يؤمنون محا حديث كدوان أنهم إنه دو طالب إمك واسح وإنا ولا قادنا أنهم إنه إله كلياتي وأي إمك وحبان نوعد إمك وحبان نوعده وحان نوعد إني آيادني تهي تكلي بسم الله الرحمن الرحيم وعوي وحا الله فرحة ويه وانا أرد هذا فائدة بدل إلهي خيراسيو waxaan rabaa inaan mawduuceeni maantay noo soo gabagabeeyo waad ogtihiin meesha aanu maantay aan ku talagalnay wakhtigu aad buu u yaryahay sidaa daraaddeed waxaan rabaa 3 mas'alo oo asaasiya inaan noogu soo gabagabeeyo arrinta koowaad waxay tahay baaqa ahlu quraanku ay jeedinayaan baaqaas oo ah dadka muslimiinta ahow rabbi ka dhigta siduu idinku baaqay oo alla idinku yidhi كونوا ربانيين قرآن كان مصدر إيميل الدين تكعس كتان كنكتا سيد الله سبحانه وتعالى أو إذن كباقي أو إذن كيري قبصة حرج عليه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم قبصة مثل الوحي حيودي مركزات جتوصا كتاغدا هدان القرآن إيه قرن نما إسره الله haddii inta afka Soomaaliga ku bahawday aanu nabad iyo farxad iyo jacayl iyo kitaabka Quraanka barashadiisa ugu baaqno haddaanu dadka ku adkayno inay qalbigooda xumaan ka tahiriyaan iyo nacayb jirkoodana najaaso ka tahiriyaan sidaad baaqa Sheekh Jaamac ka arkayseen waxaa noo soo baxaya inay ummadda islaamka ee saxda ay noqonayso ummadda nabadda iyo jacaylka aaminsan quraanka iyo qarannimaduna ay wadada u tahay arrinkaas waxa weeye arrin la yaab lama aha qofkii dhibsanayana la yaabi mayno maxaa yeelay allah ayaa quraanka hore ugu sheegay wa idaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdah haddaa quraanka keligiis aad rabbi keligiis ku sheegto fiiri quraanka keligiis rabbi keligiis wallow calaa adbaarihim nufuura وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت الذين من دونه إذا هم يستبشرون وحتى لهذا قعد على سنة وفرحة يعني مركز ربي كلية هي قرآن كلية هذا ويددها يعني آيات الله سبحانه وتعالى وعقولها يعني وكتل ما معي dadkaas cilada meesha ay ka haysato inay tahay inaysan kitaabkan aynay ku qancaynin dhageysigiisa aanay doonaynin inay wax kale ku buuqa ay raadinayaan وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قرآن كهدغيسنين كبوقا وحكلا كفرا كتبكلا دول سارا هذا لكلا كفرا لعلكم تغلبون إنا قوليستان بالغيابا waxaan saydiin sheegaynaa quraanka kaliya guusha ku jirta rabbi kaliya guusha ku jirta magaca muslimnimo ayay guusha ku jirta jamaacad cusub iyo magacyo cusub iyo ahzaab cusub waxba tari mayso ha aanu ku qanacno ilaahay subhanahu wa ta'ala ufirso ha وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون هدي الله كلي الله شيغو ويجلجلين قلوبتهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
marka ilaahay khayrkaana waafajiyo waxaan leenahay ahlu quraanka meelay joogaan ha lagu daba faylo maanfurka ha la qaato jacaylka ha la qaato nabadda ha la taageero qaranka taasaan adduuniya aakhiraba ku guulaysanaynaa qabiil aan ahayn islaamka iyo soomaalinimada qabiil noo ah islaamka caqiido noo ah qofkii naga caqiido duwan colaadin mayno wanaagaan u sheegaynaa hadduu qaadan waayana nabad baan kula noolaanaynaa wajazaakum allahu khayra aljazaa wassalaamu calaykum dushiina nabadgelyo ha ahaata dhammaantiin